gudoomiyaha gobolka Saraar Professor Ibrahim Xaaji Cali Xasan duqa degmada Caynaba Salaadiin iyo cuqaal ka tirsan gobolka Saraar ayaa maanta bilaabay inay kaalmo gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen gobolka Saraar taasoo ay soo gaadhay lacag kaalmo oo xadigeedu dhan yahay 15,000 oo dollarka Mareykanka ah taasoo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay soo gaarsiiyeen gobolka Saraar wafdiga kaalmeynta dadka abaaraysan oo gudoominayay gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali ayaa socdaal ku soo maray deegaamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi gaar ahaan deegaanada Waridaad, Ceelal, Dhanano iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi kuwaasi oo gaarsiiyay in ka badan 150 booyadood oo biyo ah taasoo qayb ka ah 15,000 dollar ee xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay afuraabka hore ee dadka ku abaaraysan gobolka Saraar taasoo haatan ay soo wajahday abaar aad u darani gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali oo ka hadlayay biyo dhaamiska iyo abaarta xilligan soo wajahday gobolka Saraar ayaa hadaladiisi waxa kamid ahaa iyo ka shacabka gobolkaba waxa aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa deeqdan naga soo gaadhay xukuumadda Soomaaliland ee ah biyaha ayaan aad ugu mahadnaqaynaa transparent bay ahayd ilaa intay ka soo baxaysay gudida horumarinta ee gudida abaaraha intay ka soo baxaysay heer wasiir markay soo martay markii ay heer gobol soo gaadhay haddeer aanu heer degmooyin u daadejinay mar walba waxay ahayd wax transparent oo shafaafa oo wada muuqata oo 15,000 oo dollar baa gobol ahaan soo gaadhay waxaan u qaybinay laba jiidood oo gobolku uu qaybsan yahay Saraar iyo Cayn qaybna 8,000 oo ayaan qaybta Saraareedna la siiyay oo abaaru ku sii badnaayeen iyo biyo la'aantu qaybna Caynna waxa la siiyay 7,000 qol walba oo sii qaybinay si cadaalad ku jirto oo ayaan u qaybinay marka halka Saraar ilaa 60 booyadood meelaha ay ku gaadhay 8,000 marka la siiyay aynana inaha in leeg bay marka runtii u gaadhay marka taqriiban 100 booyadood yaani marka biyo ka badan ayaa gobolka gaadhay waxaan rajaynaynaa 3 maalmood soo socda inay soo gabagaboobaan gaaritaanka biyaha soo ay meel walba gaaraan oo gobolka kamid ah magaalooyinka gobolka kamid ah biyaha aan gaarina ma jiraan aagwal oo la degan yahay intooda badan waa la gaarsiinayaa waxa weeye baahida ay daboolayaan laakiin way kooban tahay baahida ay runtii daboolayaan aad bay u kooban tahay waxaan rajaynaynaa wixii kale ee dadka lagu taxafulaynayo xukuumad ahaan ee awood u hesho in ay runtii ay soo gaarsiiso xukuumadda soo gaarsiiso waxaan ognahay in xukuumaddu dadaal badan wado oo shirar badan qabatay oo gudiya samaysay oo cid walba la xiriirdhay oo intii itaalkeeda ay runtii ay aad iyo aad u dadaashay waxa loo baahan yahay dadaalkaasi inuu sii socdo Suldaan Cabdiraxmaan Qodax oo kamid ah salaadiinta gobolka Saraar ayaa isaguna halkaasi ka duceeyay isagoo Ilaahay ka baryay inuu abaartani ka dulqaado ummadiisa waxaanu suldaanku tilmaamay in haatan ay dhimanayaan xoolihii lagu haystay gobolka Saraar deegaamada ay abaarta daran saameysay darteed Allahumma asqina qaysan haniyan mari'an ilaahadow wax walba adaa og wax ka qarsooni ma jiraan khalqigaagii iyo bahaa'imkaagii sida aad ogtahay ee uu arkayso ayaa ka dhaba oo ka asala ilaahay raxmad sariica baanu ka baryaynaa halka imika waxa taagan 7 booyadood oo dee laga waramay 7 booyadood ilaa waxay ka mid yihiin 60 booyadood oo aaga Saraar la yiraahdo ee macruufka ah 60 booyadood oo u kala baxaya ayay ka mid yihiin biyay sidaanay dadka iyo dhulka biyaha loo sidaa waa biyo min al-maa'i ja'alna kulli shay'in hayyan waa inay 2 maalmood waraabiso mooyaane dee waa la iska qiyaasay xoolihii dee markay xoog ahaayeen meel walba waa u biyo doonin jireen meel kastaba ha noqotay waa daayeen socodkii way daayeen waxay noqotay in halka ay gobolku ugu dhacay waagu ugu bariyo wixii Ilaahay ka reebo oo la sugo waxa kale iyaguna halkaasi ka hadlay gurmadka dadkani loo fidinayay duqa degmada Caynaba iyo cuqaasha gobolka dhamaantoodna waxa ay ku dheeraadeen sida loogu baahan yahay in kaalmo la soo gaarsiiyo dadka ku dhaqan gobolka Saraar oo haatan ay soo foosartay mid kamid ah abaarihii ugu xumaa inta la soo maray taariikhaha geesta kale waxa iyaguna walaac weyn ka muujiyay xaaladooda nololeed dadka deegaamada ay abaartu saameysay kuwaasoo ay qaarkood sheegeen in haatan ay bilaabatay in xoolahoodu ay dabar go'aan oo ay magaalooyinka ku soo xaroodaan
intaas ka hadhay laba tiro intaas ka hadhay labadii tiro habeenkii walba waa baqtiyaa sidoo baqtiyay xafadan ku soo xirano waxaan dhigayaan haraad u baqti marka halkan ku soo hoy de waa xafadan waa xafad halkaasaan ku soo xiriyay xaafada waa la jiida habeenkii yoomay wax la jiidaa shan ama maxaa jiida dawaa madale ugu dambeyntii dadka ku dhaqan gobolka Saraar iyo gobolada kale ee bariga Somaliland ee abaartu saameysay ayaa xilligan iyagu u baahan kaalmo la soo gaarsiiyo kuwaasi oo haddii aan kaalmo ama raxmaadka Ilaahay helin ay ciriiri gali doonto xaaladooda nololeed abaarta daran ee deegaamadaasi ka jirta awgeed. Maxamed Caawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel TV.